xog culus oo soo baxday ayaa muujinaysa maamulka Putin inuu qaabaynayo qorshayaal uu dunida galbeedka gaar ahaan xulafada dhow ee Mareykanka ugu hanjaba ama ugu handada adeegsiga hubka culus ee wax gumaada mashiinka dacaayadaha ee aqalka looga arrimiyo Russia ee Kremlinka ayaa si muuqata uga digay in magaalada London ay noqon doonto magaalada ugu horeysa ee la duqeeyo haddii dunida uu dagaal ka qarxo taasoo ah caradii ugu dambeysay ee Ruushku u muujiyo reer galbeedka Andrei Korolyov oo ah siyaasi ka tirsan aqalka sare ee Duma sidoo kalena saaxiib aad ugu dhow ah hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hanjabaadan Ingiriiska ka jeediyay kanaalka ay dawladda maamusho ee Russia 1 digniinaha halista ah ayaa imaanaya iyadoo ay jirto cabsi hor leh oo laga qabo in dagaalka Ukraine uu isu bedelo iska horimaad caalami ah sababtoo ah xubin ka tirsan gaashaanbuurta NATO xilli ay Lithuania xanibtay badeecooyinka la cunaqabateeyay ee Ruushka ee ku jeeda ama ka tagay gobolka Kaliningrad sargaalka ayaa sheegay in habka kaliya ee looga hortagi karayo duulaan uu Ruushku kala kulmayo wadamada NATO haddii uu midkood weeraro kaas oo shaqo gelin doona qodobka shanaad oo dhigaya in la difaaco haddii la weeraro dal NATO ah ay taasi curin doonto dagaalkii saddexaad ee adduunka waxa uu yiri waxaan burburin doonaa dhammaan dayax-gacmeedyada hawada cadawga inta lagu guda jiro hawlgalka koobaad ee cirka halka ugu horeysa ee la garaaci doona waa London way caddahay in qatarta dunidu ay ka imaanayso dadka kan waxa uu wacad ku maray in reer galbeedka ay dunida ka jari doonaan iyadoo dhammaan awoodda korontada la baabi'in doono ayuu ku goodiyay sargaalkan oo xubin ka ah guddiga difaaca ee Ruushka oo sidoo kale la hadlay warbaahinta gudaha ee wadankaas Russia ayaa u muuqata in dagaalka ay qabyaaladaynayso waqti xaadirkan isagoo isxijinaya dalalka bariga Yurub oo ay Ukraine ka mid tahay kuwaas oo ay isku yihiin qoomiyadda ballaaran Islaafka halka dadka madaxa cad ee daga Yurubta waqooyi min Holland Germany Scandinavia oo Finland laga bixiyay England oo laga saaray Scotland Northern Ireland iyo Wales ilaa waqooyiga America marka laga reebo Mexico oo ay u badan yihiin qoomiyadda asal ahaan ka soo jeeda laba qabiil oo asalkoodu German ah